munaasabad heer sare loo soo agaasimay laguna xusayay sanad guradii shanaad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay iskuulka hoose dhexe iyo sare Almisri oo ah iskuulkii ugu horeeyay ee deegaanka Gubadley laga aasaaso ayaa waxa ay ka qabsoontay xarunta iskuulka waxaana ka soo qayb galay maamulka deegaanka aqoon-yahano waalidiin odayaal dhaqameed iyo marti sharaf kale oo u badnaa dadka deegaanka waxaa xafladda daaha ka rogay Aweys Tuure Axmed oo kamid ah aasaasiyaashii iskuulka Almisri isagoo oo dardaaran adag iyo baaq u diray iskuulka iyo waalidiinta Dr. Maxamuud Xasan Kulmiye oo kamid ahaa marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabada ahna gudoomiyaha cisbitaalka Iqra ayaa waxa uu dhankiisa bogaadiyay ardayda iskuulka hoose dhexe iyo sare Almisri waxaad tihiin mirooyinka ay beeranayeen waalidiinta ay ku intifaacayeen mustaqbalka juhdiga iyo waqtiga iyo taymka iyo wax alaalo lagu baxshabo waxaan laga baahan yahay inaad ka soo mir dhalisaan oo waalidka aadan meel cid aadan ku soo seerin waxa intaas dheeraada ardaygu macalinka iskuulka waa waalidka labaad markii laga soo tago waalidka adiga ku dhalay sidaad waalidka u ixtiraamaysa inaad u ixtiraamto ayaa laga doonayaa macalinka agaasimaha koonfurta iyo bartamaha bulsha TV Cabdinajiib Abuukar Hilowle oo lagu casuumay xafladani ayaa waxa uu dhiirigeliyay maamulka iyo macallimiinta iskuulka Almisri isagoo sidoo kale baaq u diray dadka deegaanka waxaan idin rajaynayaa aniga hadalkayga halkaas aan ku sameeyo waxaan idin rajaynayaa in aad isku duubnaataan aadan la shaqaysan yarkaan hadda iskuulka mamulaka ka ama macalinka ka qofkuna markuu naqanayo leader ama hogaamiye waxa loo baahan yahay in oo nafsadiisa markuu ugu horeysa asaga oo xisaabiyo inta oonan qof kale xisaabin ama oo ku mashquulin هذا هو ما سنتين والسلامة برشوينتا قبلي قارهان أرضي ذات بيدي سلامة يا طبعا هالكاني وديغان مع المكر وحن كدياريني وربحين كترجميسو ديغانكا إن أو نقدونو مستقبل كدو أما بفق إن أي نقدونتو هالكاني دقمو waxaan rajaynaynaa aanu jecelnahay maadaama aan nahay bahda bulsha TV aanan ku hadlaynin maadaama oo lagu yeeray in aan nahay agaasimaha guud ee bulsha TV waan nahay Allah iyo mahad u sugan tahay tada kale waxaan idin sheegayaa reer Gubadley TV sidiisa banaan wuxuu idin imaan karaa amaba idin la shaqeyn karaa markii aad idinka aad isku duuban tihiin sida ay isku duuban yihiin deegaanada kale sidoo kale Garasbaaley deegaan la yiraahdo oo hadda loo yaqaano degmada Garasbaaley waxay ahayd deegaan waxa ku dadaalay u dhabar adeegay waqti ku lumiyay odayaashii halka degnaay ayada oo ay ka marneen dhalinyarada balse waxaad xusid mudan degmada Kaxda waxay ahayd geed kaliya geedkaas waxa imaan jiray ninkii gudoomiyaha ka ahay Maxamed Ismaaciil asaga oo markii dambe ku fikiray inuu halkaasi deegaan oo ka dhigo oo ka dhigin degmo marka ugu horeyso markaad aasaaso bulsho ama magaalo waxa marka ugu horeyso laga aasaasaa deegaanku wuxuu dhalaa degmo waxa laga yaabaa beritoole mustaqbalka dhow in aad ka mid noqotaan shaqaalaha bulsha TV aadna noqotaan halka maanta aniga taaganahay laakiin waxay ku xiran tahay inaad adiga marka hore nafsadaada aad xisaabiso wiligaana ha isku dayin ustaadkan muxuu ahaa macalinkan muxuu ahaa odagan muxuu ahaa eedadan maxay ahayd
qofkan buugga wata muxuu ahaa qofkan halkaa taagan muxuu ahaa intaa oo dhan waxaan kaga dardaarmayaa inaad iska daysaan si aad u gaartaan horumar iyo hiigsi iyo halka ay hadda ay wada joogaan dadka mas'uuliyiinta ah aad u mahadsantihiin Cabdullaahi Maxamuud Cadow gudoomiyaha waaxda afraad ee deegaanka Gubadley oo kamid ahaa mas'uuliyiintii ka soo qayb galay xafladda ayaa waxa uu ammaan ballaaran u jeediyay dugsiga hoose dhexe iyo sare Almisri isagoo ugu baaqay dadka deegaanka in caruurtooda ay geeyaan iskuulkani maadaama aan ku jiray maamulka agaasimka hawshaasi waxaan fiirinayaa ardaydii oo kala tagta macallimiintii oo isgafta maanan arkin ilaa laga tago ay hawshu ka dhamaato waa taagna maxaa noo dirsay maamulku muxuu noo dirsanaa la dhahay marka Almisri ma joogo meel yani la ceelceeliyo wuxuu joogaa meel waraanigii maawla yiraahdo waxaan aaminsanahay qof walba oo deegaankan ku noolna waxa fikirkiisa higsigiisu yahay inuu ardayda amba caruurta uu dhalo oo keeno Almisri maamulaha iskuulka hoose dhexe iyo sare Almisri Maxamed Amiin Cabdirasaaq oo soo xiray xafladda ayaa waxa uu ka faalooday taariikhda iskuulka iyo marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray waxaan rabaa maanta xafladdan sanad guurada shanaad gaar ahaan waliba dadka ka soo qayb galay aad iyo aad aan uga mahadcelinaa waxaan si gooni ugu mahadcelinaa TV-geygii aniga ma dhahay TV-ga bulsho maadaama aan ka mid ahay shaqaalaha TV-ga waxaan leeyahay saaxiibkay al-ustaad abwaan agaasimahayga qaaliga Cabdinajiib Abuukar Hilowle waxaan leeyahay kulli koow jeer waa maasan tahay aad iyo aad aan idinkaga mahadcelinaa TV waa la yaqaanaa mar allaala markuu tilaab soo qaado waa inuu kumanaan kun oo dollar ay baxdo wallahi thumma wallahi inaan nus dollar aanan dhiibin TV-gan madaxiisa maantana caalamka oo dhan waxaana laga fiirsanaa annagoo xafladeeni iyo damaashaadkeena dhiganayna Gubadley waxaan leeyahay bulsha TV iyo Almisri intay joogaan waligeed ma baaba'ayso mana duugoobayso mana halaabayso dooreed insha Allah anta waxa meesha aan isugu imaanay waa xafladii sanad guuradii shanaad ee dugsiga hoose dhexe sare Almisri waa sax waxaan rabaa qofkii aanan xasuusnayn inaan xasuusiyo dugsiga hoose dhexe sare Almisri waxaan ka soo bilownay waaxda uu ku yaala intii ka horeysay waxaan ka soo bilownay deegaan weynahan la dhihi jiray jamhuuriyo 2015 aan ka bilownay 2016 aan deganayn 2016 wuxuu eeba noo soo diray gudoomiye abwaan nabadoon oday aad iyo aad loo jecel yahay oo la dhihi jiray oday Cabdullaahi Cali Laflaawe ilaahu waxaan ka baryaa jannada firdawsi inuu geeyo hadii uu dhinto inta uu nool yahay adduunyadan uu joogana ciz iyo sharaf iyo kormar iyo hormar aad iyo aad ayaan u rajaynayaa maadaama maanta deegaan weynahan Gubadley dadkan dhan ee wax bartay ee quruxda badan ee baraamburada iyo gabayada iyo nashiidooyinka iyo guurowga iyo wax allaala wixii barnaamijka oo iskuul lagu dhigo soo jeedinayay ayagoo aanan warqadna ka akhrineen waxaas waxa u sababa oday Cabdullaahi Cali Laflaawe cimrigiisa dheeraado Nuno Xuseen Sheekh Maxamed muuqaal baahiyaha bulsho magaalada Muqdisho ma ogtahay in tiifiyada Soomaalidu ay u wareegeen satellite cusub oo gaadhaya in ka badan intii uu gaadhayay satellite-kii hore qaaradaha laga daawanayo waxa kamid ah Afrika, Asia, qaybo kamid ah Europe iyo dunida inteeda kale oo looga daawanayo nidaamka IPTV haddii aad joogto Afrika waxaad ku heli kartaa si fudud hoos u yara dhigdhiishkaaga xubinta suulka in la kadib kubaad frequency-ga ku soo baxa adiga oon jihana u wicwicin dhiishka kubaad frequency-ga si aad u hesho dhammaan channeladaas mahadsanidin